maalin maalmaha ka mid ah boqor ayaa iskugu yeeray saddexdiisa wasiir. wasiir walba wuxuu ka codsaday inuu qaato bac oona aado beerta qasriga oona ka soo buuxiyo qudrad iyo miro kala duwan oo nadiif ah. wuxuuna ka codsaday inaysan u kaalmaysanin shaqadani qof aysanna ku tiirsanaanin qof kale. wasiiradii ayaa la yaabay codsigii boqorka, mid walbana wuxuu qaatay bacdiisa wuxuuna aaday beerta. wasiirkii koowaad wuxuu ku dadaalayay inuu boqorka qanciyo, wuxuuna soo aruuriyey miraha kuwooda ugu fiican ilaa uu ka soo buuxiyo kiiskiisa. wasiirkii labaad wuxuu naftiisa ku qanciyey inuusan boqorka u baahnayn miro oosanna baaraynin bacyaha. markaas ayuu bacdiisa wuxuu ku soo guray miro oo isku jira kuwa nadiif ah iyo kuwa xun intaba. wasiirka saddexaad ma uusan aaminsanayn inuu boqorka muhiimad siinayo wax ku dhex jira bacyaha, markaasoo wuxuu ka soo buuxiyey cawska iyo caleemaha geedka. maalintii xigtay boqorkii wuxuu amray saddexdii wasiir inay keenaan bacooyinkii ay soo buuxiyeen. markay keeneen, boqorka wuxuu amray ciidamada inay qabtaan saddexdii wasiir, mid walibana ay la xiraan bacdiisa muddo bil ah, kuna xiraan xabsi aanan qofna ku soo booqan karin. wuxuuna ka mamnuucay cunista iyo cabista. wasiirkii koowaad wuxuu ku noolaa ama wuxuu cunayey mirihii wanaagsanaa uu soo gurtay ilaa muddadii ay ka dhammaatay. wasiirkii labaad wuxuu ku noolaa cariiri iyo gaajo, asigoo yaryaraysanayo intii yareed oo fiicneed oo soo aruuriyey. balse wasiirkii saddexaad wuxuu u dhintay gaajo. sidaasi oo kaleento weydii naftaadii, noocee ayaad adiga tahay? adiga hadeer waxaad ku dhex sugan tahay beerta adduunka. waxaad xorriyad u leedahay inaad aruursato acmaasha kuwoodii wanaagsan iyo kuwoodii xun. balse berito marka uu ku amrayo boqorada boqorkooda lagugu xabiso qabrigaagii oo ah mugdi ciriiri, aadna keligaagi ku tahay halkaasi, aysanna jiraynin cid kugu wehelisa qabriga, maxaad isdhahaysaa way ku anfici doonaan marka laga reebo waxyaabaha wanaagsan aad ku samaysay noloshaada adduunyo? ugu dambayntii, walaalkaygiyo iyo walaashaydiye, waxaan kula talinayaa inaad mar walba ku dadaasho acmaasha wanaagsan si uu ilaahay kuu nimceeyo jannadiisa. maxaa yeelay soomaalidu waxay tiraahdaa shalayduma horayso ee waa ay dambaysaa. walaalkaygiyo walaashaydiye, ku dadaal acmaasha. ayuu waxaan ku weydiisanaynaa inaad na geliso jannadaadii. allahumma aamiin aamiin ya rabbal caalamiin. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. fadlan la wadaag.